السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بايدين سلام يا أصحابتي إذا شرفت بدن وحيد الله يهيسو دوادة دمانتين ومالين كلو عصب إن شاء الله بإذن الله الرحمن هدا كبعدنا سيجوكته أيان أسو قلي دونا هدي إلهي نفتا يقسمه إن الله الرحمن كورالي نوغا نقضو إن نولش إلهي با قعنتكو هايو إن لقارين إلهي با أوغ ما شاء الله تبارك الله dhammaantii soo dhawaada maanta barnaamijka idin wada runtii waa barnaamij wiil yar oo aad iyo aad uga naxay oo qalbigaygu qaadan waayay runtii xanuunka Allah raxmaanka ah ka dulqaado aadanuhu waa daciif waxa weeye yaan anagu samir daraanin khayrka wuu iska imaan doonaa caafimaadkana wuu imaan doonaa ilmo yar oo runtii isaga oo yiriis ah xabad ku dhacday wixii ku dhuftayna aan la garanaynin intaasoo qalliina maray intaasoo dhibaato ah maray yacnaha dhibkana haysto ummadda Soomaaliyeed dhibka haysto islaamka dhibka haysta Allah ka dulqaado ilaahayga raxmaan aha ha ka dulqaado mar walbana waxaan leeyahay hooda ilaahay baa lagu dhargaa hoo aadana waxba ma tarto tan ilaahay agtiisa u taalo ee teenan ka fiican oo ka wanaagsan oo ka waasacsan Allah raxmaanka ha siiyo caafimaadka waa muhiim qofka intuu caafimaad qabo hadli karaa mar hadaad caafimaad haysanin waxadala waxa weeye maba jiraanba insha Allah biidnillaahi raxmaan barnaamijyo badan oo gabdho walaalo ila soo wadaageen ayaguna waan ka hadli doonaa biidnillaahi raxmaan aad baa idinkugu mahad celinayaa sida quruxda badan dadka ila soo xiriira ee isoo raadiyay waxaan kaloo leeyahay oo maanta barnaamijkayga iyo diiradayda uu saaran tahay team reer walaalo isjecel iyo team guul iyo gobonimo iyo teamka sayruuq maanta ku xiran ee ka tirsan iyo dhammaan youtuberada waaweyn aniga oo runtii insha Allah magacyadooda hal u soo sheegan doono u soo qaadi doono baa waxaan ka filayaa biidnillaahi raxmaan wiilka yar ee Soomaaliyeed ee waaridka u nahay ee hooyo Soomaaliyeed ay dhashay ee maanta lacagtii dhakhtarka uu ku yaalay lagu leeyahay maalin walba la dhaqayo calooshiisa wallahi alcadiim sawirada aan arkay ama fiidiyowyada qaar aan arkay yacnaha anigiyaa ka baqay waxaan is iri marka dadweynihiina haddaad u gudbiso xoogaa dadka qalbiga ama qalbi taqtaq ku dhacaayo xoogaa dadku qalbiga bini'aadamku waa jilicsan yahay ama dadku eegi kari waayaan sidii loo rabay yacnaha iyaga oo calol xumo ay ka hayso marka waxaan rajaynayaa wiilasha iyo gabdhaha youtuberada waaweyn ah ee macnaha inta badan Soomaalinimadu ay ku dheehan tahay muslimnimaduna ay ku dheehan tahay inay oga qayb qaataan nambarkiisa anoo soo qori doono insha Allah biidnillaahi raxmaan iyo sawirada intaba anoo soo gelin doono channelka Sayruuq Sheekh runtii halkan baan ku hayaa laptopkan baan ku hayaa sawirada aad baan runtii oga qofka bini aadamka ah oga argagaxaya markuu arko wallahi aniga kulay waa daawan kari waayay Allah igu og wakaas waa cunug yar ilaahay baa idinku dhaariyay xabadda siday ugu dhacday fiiri isagoo meel taagan dagaal ku muusa jirin dhibaato kale ku muusa jirin wax kale ku muusa jirin fiiri inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun ilaahayga raxmaan ahaaba horta inuu u boogadhayo Allah raxmaanka aan ka rajaynaynaa Allah raxmaanka aan ka rajaynaynaa inuu u boogadhayo inuu caafimaad sareecana siiyo biidnillaahi raxmaan ilaahayga casiis ah ayaan u baryaynaa isaga caadil ah wallahi alcadiim aadan oga naxay qaarkood waxa weeye waxaad fiirin karta ma aha inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun kii ku dhuftay ma yaqaano meeshay oga timi ma yaqaano ilmahaas yarka ah wakaa halkaasuu taagan yahay
meesha dilidhayo waa ujeedin inaad hooyadii rajeynayna codka inaan bismillaahi raxmaani raxiim inta waxaa ka salaama ummadda Soomaaliyeed warbiyo joogta walaalayaal waxaan iga codsanayaa inay soo caawisiin wiilashiin oo dhibana ahay wiidi daayar ahay waa ujeedin walaalayaal caloosha qalinka saddexaad marwa inay soo caawisiin aad baahana caloosha meesha dilidhayo waa ujeedin inaad hooyadii leeyso insha Allah waxaan iga filaa wax fiican aniga sida بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محمد كهف سننا لبناها سنويا للمها سن لبناها نويا رب الله سامعها على شو كلا فرنتا مع أبوه وكلا فرنتا وعرفت عن لبكنا هيستوى على سوالف محمد كهف سننا أنا وحي نوي الكرانة جرجارة نقصها ويانا يوم وعلىها bismillaahi raxmaani raxiim inta waxaa ka salaama ummadda Soomaaliyeed warbiyo joogta walaalayaal waxaan iga codsanayaa inay soo caawisiin wiilashiin oo dhibana ahay wiidi daayar ahay waa ujeedin walaalayaal caloosha qalinka saddexaad marwa inay soo caawisiin aad baahana caloosha ilaahay ha ku caawiyo meesha dilidhayo waa ujeedin ilaahayga raxmaan ahaa habaryar ha ku caawiyo ilaahayga raxmaan ahaa habaryar ha ku caawiyo caawinitaan بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله codkiyaa lagu soo celiyey mar labaad لبناها سنويا للمها سن لبناها نويا رب الله سامعها على شو كلا فرنتا الله أكبر الله أكبر إنا لله وإنا إليه راجعون وحواي نول بوحبو شاغني نول بحنون بو شاغني الحمد لله على كل نعمة الله إلهي بما هذا سقناتي ابن آدم بانهاي وحلينا انتا حلي كرنو وحبان شاغنينا انتا وحشيغي كرو وحبان دهينا انتا وحديه كرو لكن maalintana la qabto maalinay nooga xun tahay ma laha runtii waxaan isleeyahay walaalaha Soomaaliyeed aragti intaasa ugu filan inay arkaan aragti maanta intaasa ugu filan waxaan rajaynayaa sida hore u soo sheegay oo halkan aan ka codsanayaa oo aan rabaa kilibkaygan insha Allah biidmillaahi rahmaan inuu gaaro wiilasha youtuberada ah ee waaweyn ee khayrka jecel uu ugu horeeyo walaalkeen Cimraan uu ku xigo Cabdi Fataax Boodhari uu ku xigo Yaasiin Haliyey uu ku xigo Kabtan Ayuub uu ku xigo Kinsiikay ma soo tirin karo runtii wiilasha khayrka jecel ee raba inay dadkoodii garab istaagaan magaca Soomaaliyeed ayagoo huwan runtii garab istaagaan waxaan isleeyahay khayrka inay ka qayb qaataan mar walbana runtii waxaan isleeyahay waxay yihiin dadka ku dayashada iyo tusaalaha intaba mudan waxaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkan kama daali doono insha Allah biidmillaahi rahmaan in aan wiilkan dhaho ummadda Soomaaliyeed soo caawiyo ilaahay dartii ku caawiya gabdhahaygii iyo gruubkaygii aan ku xiraa oo khayrka jeclaa habaryaasha u ahaana waxaan rajaynayaa inay ila soo xiriiri doonaan anigoo nambarkaygana hoos ku soo qori doono lambarkoodana soo qori doono kayga ma aha lambarkoodan soo qorayaa aniga wixii soonahayga iyo geesahayga ahna wixii aan ka soo qaaday insha Allah biidmillaahi rahmaan sidii aan ugu gudbin lahaa falankeedan gelayaa biidmillaah haddii ilaahay intaa nafta inagu simo aad baa idin salaamaya asxaabtayda salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh allah raxmaanka ah mar walbaba dhibkeenna ilaahay ha noo xalliyo ilaahay ha noo asturo isagaa raxmaan ah qof walba dhib iyo culays baa meel ka saaran laakiin waxaan leeyahay culayska iyo dhibka allaha raxmaanka ayaa daboole eh allaha raxmaanka ha noo daboolo allaha raxmaanka ha noo xalliyo dhibka nin walba uu sheeganayana allaha u fududeeyo unugaan yarkan ilaahay waxaan uga baryaynaa
raxmaanka waxaan oga baryaynaa malaa'iga qaasa intuu usoo diray inay sacabka saa u mariyaan oo ilaahay xanuunka ka dulqaado oo meel baaba'day oo bogsatay ilaahay oga dhiga biidni illaahi araxmaan waxaan idin leeyahay guul iyo gobonnimo aan dhammaanin salaamullah waraxmatullaahi wabarakaatuhu